Allah subxaanahu wa tacaala ma dayacayo ehelkiisa. Waxaad tahay saxaabiyad. Dabcan, waxaa si aad ah ugu soo raaxaysatay qisadii Saara ee qasriga Fircoon iyo siduu Allah subxaanahu wa tacaala u ilaaliyay sharafkeeda iyo sida ay Nabi Ibraahim calayhi salaam dib ugu soo laabatay iyada oo wado Haajara, gabadhuu Fircoon hadiyad ahaanta u soo siiyey kadib markuu ogaaday Saara inay tahay marwo barakaysan. Hadda waxaan arkaa inaad saa'id u xiisaynayso inaad ogaato markaas kadib wixii dhacay. Xiisahaagana qaladku ma lihid, sababtoo ah markaas kadib wixii dhacay waxay ahaayeen mucjiso mudan in qofka uu raaciyo caqligiisa iyo maankiisaba. Saara, marwada raaliyadda ah, waxay ogaatay inaysan waxba dhalaynin, iyada iyo Nabi Ibraahim calayhi salaamna ay guurkooda ka soo wareegatay sannado fara badan. Sidoo kale waxay ogeed in Ibraahim calayhi salaam uu aad u jecel yahay carruurta, markaasna waxay xoreysay Haajara. Nabi Ibraahim calayhi salaam ayay ka dalbatay inuu guursado. Dabcan, Nabi Ibraahimna wuu guursaday. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa qaliilkiisa Ibraahim u hibeeyey markaas wiilkiisa curadka ah. Nabi Ibraahim calayhi salaam qalbigiisana wuxuu aad u jeclaaday wiilkiisa Ismaaciil iyo hooyadiis Haajara. Saara ayaa markaas waxay dareentay maseer, waxayna u dhaqmi jirtay sida naag maseertay oo kale. Nabi Ibraahim calayhi salaam ayaa markaas wiilkiisa Ismaaciil iyo Haajara u waday safar dheer oo ujeedkiisu ahaa magaalada Makka, oo xilligaas ahayd saxaro cidla ah oo aan lagu noolaan karin. Bani aadamna kuma noolo, geedna kuma yaalo, biyana lagama helaba. Kacbaduna xilligaas waxay ahayd mid burbursan, sababtuna waxay ahayd duufaantii lagu halaagay qoomkii Nebi Nuux. Ibraahim calayhi salaam Haajara wuxuu u dhiibay xoogaa timir iyo biyo ah, kadibna dhabarka ayuu jeediyey oo wuu iska baxay. Haajaro ayaa ka daba qaylisay markaas, waxayna tiri, Ibraahim, intee naga aadaysaa? Ma waxaa nooga tegaysaa meeshaan aysan bani aadamka joogin, noloshana aan lahayn? Hadalkaas ayay ku celcelinaysay. Ibraahimna gadaal ma uusan soo fiirin. Waxay tiri markaas, ma Alle ayaa ku amray? Wuxuu yidhi haa. Waxay tiri markaas, haddabana ma dayacayo Alle. Kadibna waxay dib ugu laabatay halkii uu dejiyey ninkeeda Ibraahim. Nebi Ibraahimna wuu iska baxay markaas. Araggooda markuu ka qarsoomay ayuu Alle u baryay. Haajara waxay nuujinaysay Ismaaciil, iyadana waxay cabaysay biyihii looga tegay. Iyaga oo sidaas ah ayaa waxaa ka dhammaaday biyihii, iyadana way oontay, wiilkeedana wuu oomay. Markaas ayaa waxay dhex oroday labada buurood ee kala ah Safa iyo Marwa si ay bal u hesho qof caawiyo iyada. 7 mar ayay oroday, balse cidna ma aysan helin. Rajadeeda ugu dambayso ayay ka dhigatay Rabbigeed. Rabbiga ay taladeeda u dhiibatay ayaa wuxuu u soo diray markaas malag. Lugaha wiilkeeda agtooda ayaa waxaa looga sameeyey il biyo ah, iyadana waxay gacanteeda ku celinaysay biyaha si aysan uga tegin. Ishaas biyaha ahna waxaa lagu magacaabay biyaha Zamzam. Biyihii ayay cabtay, wiilkeedana way nuujisay. Malagii ayaa wuxuu ku yidhi markaas, dayacad ha ka cabsanina, halkan waxaa ku yaala guriga Alle oo ay dhisi doonaan wiilkan iyo aabbihiis. Allena ma dayacayo ehelkiisa. Shimbiro ayaa waxay dul wareegayeen markaas isha biyaha. Agtoodana waxaa marayay qabiil la oran jiray Jurhum. Markaasna waxay arkeen shimbiraha, waxayna dhaheen, shimbirahan biyaha unbay dul wareegaan. Haajaro ayay ka dalbadeen markaas derisnimo, iyadana way u fasaxday. Sidaasna waxaa ku bilowday camiradda iyo degidda magaalada Makka. Haajarana Alle ayaa wehelkeeda noqday oo ka saaray cidlada. Saara waxay khilaaftay oo dhinac martay dabciga dumarka, sababtoo ah dumarka dabci ahaantooda waxay necab yihiin naagta lala qabo. Saasay tahayna Saara ninkeeda ayay u hadiyeysay Haajara si uu u guursado. Maadaama aysan iyadu wax dhalaynin, ma aysan rabin in ay ninkeeda ka hor istaagto inuu dhalo carruur. Marka ay maseertayna waxay dib ugu laabatay dabcigeedii dumarnimada ahaa. Taasna kama dhigno iimaan yari, sababtoo ah iimaankeedu wuxuu ahaa sida buur oo kale. Laakiin dabciga iyo abuurka waa waxay ka siman yihiin bani aadamka.
muslim iyo gaalba. Maseerkuna kuma xirna iimaanka. Haddii iimaanka looga badbaadayo maseerka, Saara ayaa ka badbaadi lahayd. Sidoo kale waxaa ka badbaadi lahaa xaasaskii nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Iimaanku wuxuu xakameeyaa dabciga. Sidoo kale gabadha wuxuu ka ilaaliyaa in ay samayso dulmi marka ay maseerto. Waana midkaas farqiga u dhexeeyo gabadha mu'minada ah iyo midda kale. Saxaabiyadda Ibraahim ma ahayn mid ka deeqtoomay xaaskiisa iyo wiilkiisa. Haajarana kama aysan kaaftoomin ninkeeda, balse Alle ayaa amray Nebi Ibraahim inuu ka tago Haajara. Iyaduna imtixaankaas way u sabartay, sababtoo ah Alle ayaa amray. Amarka Allena xitaa haddii uu ka hor imaanayo rabitaankeena, waa inaan qaadanaa isaga, sababtoo ah adduunkani waa daar imtixaan.